maanta farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen ummadda reer Somaliland carwada qiimaha iyo qaayaha leh ee maanta ka soo wada qayb galno oo runtii muujinaysa dadaalka reer Somaliland ku jiraan horumarinta dalkooda waxaan maanta koowaad labaad aan u gudbinayaa dhalinyarada sida fiican u soo agaasitay hawsha runtii ee isku dhaqaamay inay qabsoonto carwada quruxda badan ee ganacsi carwadu runtii waxa weeyaan sababta qaanaan waa waxay muujinaysaa mar waa isbarasho oo ganacsiga isbaranaysa marna waxay isbarayaan ummadda ay ka ganacsadaan ba isbarayaan kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo bishii Diisembar 17 magaalada Hargeysa ka furayay carwadii ugu weyneed ee dhinaca ganacsiga ee weligeed lagu qabto magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland. carwadaasi waxa ay bilaabantay bishii Diisembar 17 waxaana ay socotay muddo 5 maalmood waxaana la soo gabagabeeyay bishii Diisembar 21 carwadaasi waxa ka soo qayb galay shariikado ganacsi oo kala duwan oo tiradoodu ay dhammayd 100 shariikadood kuwaasoo 70 ka mid ay ahaayeen shariikadaha ganacsiga ee Somaliland halka 30 kalena ay ka yimaadeen dabadaha iyadoo kuwaasna badankoodu ay ka yimaadeen dalka Jamhuuriyadda Djibouti koorintii aan albaabada loo furin carwadaasi ayaa waxa muddo dheer diyaar garowgeedu uu ka socday hoteelka Mansour oo carwadaasi ay ka dhacaysay iyadoo shaqaalaha shariikadaha ka qayb galaya bandhigaasina ay isku diyaarinayeen goobaha ay u asteeyeen qabanqaabiyeyaasha carwadaasi qabanqaabiyeyaasha hawshan oo aad u ballaadhnayd oo iyadoo kalena aan hore loo arkin ayaa waxaa ka mid ahaa Yuusuf Axmed Ibraahin oo loo yaqaano Yuusuf Afrikaan oo reer Djibouti waxaana uu iga warramay alaabooyinka iyo adeegyada kala duwan ee carwadaasi lagu soo bandhigay carwadan waxay bilaabmatay bisha 17 maantana ugu dambayso xirmaysa waxa ka soo qayb galay ilaa 100 baayac mushtar oo kala duwan oo Somaliland ay tahay 70 tirada marka la eego 30 kalena ay dibadaha ka yimaadeen 30 kale marka dib loogu noqdona ay u badan yihiin reer Djibouti oo iyagu 12 ay qiyaasadu tahay marka sideed u arkaysiin aad bay u noqotay waxa la yiraahdaa success oo ka badisay wixii aan ugu talagalnay iyo halkii aanu moodaynay aanu gaarno meel ka sii fog baa la gaaray ayaan kasta waxa gala marka la qiyaaso ilaa 5,000 oo qof ayaa soo dibadda ka soo gala oo soo daawada meesha ama baayac mushtar ha noqdaan ama civil ha noqdaan ama NGO ha noqdaan ama wixii dawli ha noqdaan weli waxaanu joognaa carwada ganacsiga ee magaalada Hargeysa shariikada iyaguna alaabada ku soo bandhigay halkan waxa ka mid ah Natural Resource Development Group oo sida idin muuqata fooxa iyo beeyada iyo waxyaabo kale halkan keenay Saacadiye magacaaga saddexan igu bilow Saacadiye Musaxmed waa tahay bal hadda alaabadan tilmaan naga siiyaa soo bandhigteen halkan waxa lagu soo bandhigay oo soo bandhigay Natural Resource Development Groupku waxyaabaha dalka ka baxa waxa dalka ka baxa maydiga beeyada kalluunka la qalashiyay milix cusbadii maxay tahay labka ahayd iyo doonyahan oo gacanta lagu sameeyo iyo waa tahay marka alaabadan inta badan xagga laga keenaa alaabadan waa Somaliland kulligeed meeshaas baan ahay inta kale waa macaa kalluunku waa iyada baxanta ku jirta waa iyada qalabka dhan iyada halkan waa tahay marka fooxa iyo beeyada iyo waa waxyaabo ay dadka Soomaalidu aad u yaqaanaan guud ahaan bandhigan maxaa kaga soo qayb gashan maxaa doonaysaa ku muujisaan waxaan doonayaa inaan ku muujino oo aan dadka u tusno in dalka wax badan ka soo baxaan kaasna waa malmal waxaan leeyahay carwadani waxay qayb ka qaadan doontaa dardargelinta iyo horumarinta ganacsiga dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xiriirka ay la leedahay dawladaha kale kuwa jaarka iyo kuwa kale fogba waxaan leenahay Somaliland waxay ku tallaabsatay guulo ganacsi furfuran runtii taasna waxa ka maraga carwadan waxaan markaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhalinyarada ay ag fadhida soo qabanqaabisay carwadan sida u suurtageliyay shariikadaha kale sida idin muuqatay iyaguna ka soo qayb galay carwadan dhinaca ganacsiga ee magaalada Hargeysa waxa ka mid ah dukaanka caanka ee dharka haweenka iibiya ee Habboon Deeqa
oo xarumo ku leh magaalooyinka Dubai iyo Djibouti habboon ma markii ugu horeysay aad ka soo qayb gashaa carwadan oo kale ها walaal waa markii ugu horeysay ka soo qayb galo carwo caalamiyaba waa tay alaabada soo bandhigteen hadda tilmaan naga sii duruucdii baa halkan ka muuqata maxaa kala keenteen waxaanu keenay duruucdii sidii caadada noo ahayd garbasaarihii googoradihii iyo waliba qalab sharaxaad oo sidnay maanta oo guryaha decorationka ah wali waxaanu dhex joognaa carwada ganacsiga ee magaalada Hargeysa sharikadaha kale iyaguna adeegyadooda ku soo bandhigay ka yimid dalka Djibouti waxa ka mid ah sharikada Mary la yiraahdo Yusuf sharikadan oo reer Djibouti maxay iyadu soo bandhigtay horta sharikadani oo ah sharikadaha waaweyn ee Djibouti ka shaqeeya oo keena waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin gaariyadan Toyotagu waxay ku jirtaa 12kii aan ku sheegay baa mushtar Djibouti ka yimiday halka carwada ka soo qayb galay waxaad moodaa Djibouti inay ugu dhow noqotay Hargeysa ugu dhawaatay ugu dad badatay marka horta iminkay doonayaan inay degaan ay gawaaridi keenaan ay xafiisna ka furtaan marka iminka taasi u joogaan magacayga Rabiic Maxamed Xuseen Baladhada waxaan ka socdaa company-gan maaxda biyahan togdheer soo saara marka waxa aan leeyahay carwadan sidoo oo kale loo qabanayo waxyaabo badan ayay dalkeena faa'iido u leedahay waxaan leeyahay mar walba dhalinyarada iyo ganacsatadu inay isku tashadaan ka bacdi ay soo saaraan research noocan oo kale si ay carwooyin fara badan oo wax ku ool ah dalkeena looga soo saaro waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyartii soo qaban qaabisay carwadan inta leeg aad ka qiimaha iyo qaayaha leh ay dadka iyo dadka tirada leh isku yimaadeen runaantii carwadan waa carwadii ugu horeysay ee ugu weyneed ee Soomaaliland waligeed ka dhacda intaynu ognahay dadweynaha reer Soomaaliland aad bay uga farxeen soo dhaweynta iyo nidaamka qiimo dhimista loo sameeyay runaantii waxaan halkan si mahad leh oo aad iyo aan ugu mahadnaqanaa dhalinyaradii runaantii maskaxda iyo fikirkan keentay oo ahaa dhalinyaro runaantii da'yar ah oo khubaro ah oo jaamiciyiin oo Soomaaliland daris ah runaantii fikirkan waa fikir in badan aan hore u dhicin sharikadaha iyagu gacanta ka geystay kharashka ku baxay carwadan ayaa waxa ka mid ahayd sharikada weyn ee Dahabshiil maamulaha guud ee sharikada Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda carwadan ay leedahay anaga hadaan sharikada Dahabshiil waa ku faraxsanahay wax walba oo wadankeena u keenay magac inaan maal gelin aad baan ugu faraxsanahay xafladan aan ka qayb qaadanay haddaan Dahabshiil lahayn mar walba wixii ummadda u dana anagana waa noo dan weeye saa la socotaan ma doonayo inaan waqti badan ka qaado oo Dahabshiil iyo waxyaalaha uu qabtay ka sheekeeyo taasi runtii waxaan filayaa in aan u baahday maanta oo kale laakiin markaan soo ururiyo waxa weeye xafladan aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa ciddii organize garaysay iyo ciddii ka soo qayb qaadatay muddadii 5 maalmood ahayd ee carwadani ay ka socotay magaalada Hargeysa ayaa waxa maalin walba u soo daawasho tagayay dad lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo qof oo ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland ka sokow daawashada alaabada lagu soo bandhigay carwadaasi ayaa waxa kale oo dadweynaha loo sameeyay bakhtiyaan nasiib ay ku helayeen alaabooyin kala duwan oo kuwa guryaha la dhigtaa alaabooyinkaasi bakhtiyaan nasiibka lagu helayay oo dhammaantood ay bixisay sharikada la yiraahdo Golden Furniture and Designs oo dhammaantoodna lagu sameeyay magaalada Hargeysa waxyaabaha xiisaha gaarka u sii yeelay bakhtiyaan nasiibkaasina waxa ka mid ahaa markii sariir weyn ay ku guuleysteen lamaane maalmahaasuuna qalgalayay fadlan inaga waa haaskiisii saamka lagu soo caawiyo intii
carwadani ay ka socotay magaalada Hargeysa waxaa maalin walba ka soo qayb galay dad lagu qiyaasay ilaa 5,000 qof inay dhan yihiin oo markaasi u soo daawasho tagay waxyaabaha carwadan la keeno iyo qalabka lagu iibinayaba walaal magaca adiga maxamed cismaan nuur maxamed waxaad ka mid tahay dadka carwadan u soo daawasho tagay maanta kuugu horeysa maanta ay warso markii ugu horeysan imaado waa tay maxaa kaaga baxay markaa runtii waxaad arkaysaa carwadan inay tahay carwo loo soo abaabulay sida carwooyinkan arki jirnay international fairska ahaa ama carwooyinkii caalamiga ahaa runtii waa wax lagu faani karo maanta ay Soomaaliland ku faani karto inay isku dabarideen muddo yar oo kooban carwo sidan oo kala oo lagu soo bandhigay magaranaysaa qof kastoo baac mushtariga wixii uu magaranaysaa oo businesskiisa ahaa ama baac mushtarigiisa ahaa runtiina soo jeedan karta indhaha caalamka dibadda gaar ahaan waxyaabaha maxamed adiga ku soo jiitay ee aad la dhacday maxaa ka mid waxa inta badan waxa weeye wax iska caadi oo baac mushtariga oo dhar iyo caynkaas laakiin waxyaalaha ay soo jiitay waxa ka mid ah natural resourceska oo beeyadii iyo fooxii aan ku arkay meel waxaan arkay dairy farm product oo aan caano loo aad ka soo cabeeyo maanta wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka mid ahaa madax sare oo fara badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliland oo ka qayb galay intii carwadaasi ay socotay ayaa waxa si aad u weyn ugu dheeraaday mahadnaqa uu soo jeedinayay xubnihii iyagu soo qabanqaabiyay carwadan iyo dhinacyadii kale gacanta ka geystay guushii carwadaasi ay ku dhammaatay waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo carwadan sidii la yidhi tii ugu horreysay dalkana ma aha ta ugu dambaysana insha Allah noqon mayso waxayna inoo ballan qaadeen dhallinyaradii hawsha fulisay inay sanadka soo socotana qaban doonaan carwatan oo kale ah ka wasaaradda ahaan wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska haddaanu nahay waxaan u ballan qaadaynaa annagoo u mahadnaqayna ganacsatadii ka soo qayb gashay ee dibadda cid kasta oo ka soo qayb galaysa carwooyinka soo socda ee noocan oo kale ah marka ay imanayaan wixii alaab ah ee ay keenaan marka ay dalka soo gelinayaan inaanu tirakoob lagu samayn doono marka ugu horeysa aanu u ogolaan doono inay cashuur dhaaf dalka ku soo galaan marka hore wixii iibsami waaya ay la noqonayaan cashuur la'aan inay ku noqon doonaan sidooda ula noqon doonaan wixii iibsamayna marka aanu cashuuri doonno annagoo ku dhiirigelinayna inay carwooyinka noocan oo kale ka soo qayb galaan taas waa ballanqaad